sida ay sheegtay wasaaradda amniga Galmudug, ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug, halkaas oo ka mid ahayd saldhigyada ugu waaweynaa ee ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen koonfurta gobolka Mudug. wasaaradda amniga Galmudug waxay sheegtay in ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalku ay saaka si xoog ah ula wareegeen deegaankaasi Qaycad, ayna gacanta ku dhigeen hub, qalab wargaarsiineed, raashin iyo agabyo kale oo ay Al-Shabaab halkaasi uga tageen. balse wararka madax bannaan maamulka Galmudug oo aanu ka helnay deegaankaasi Qaycad ayaa sheegaya in ciidamada Al-Shabaab ay si iskooda isaga baxeen deegaankaasi Qaycad, kadibna ay ciidamada dowladdu si nabad ah ku tageen deegaankaasi Qaycad. wasaaradda amniga Galmudug waxay warbaahinta ku soo bandhigtay sawirro muujinaya ciidamada dowladda oo ku dhex sugan deegaanka Qaycad. waxay kaloo sheegtay in ay sii dabageli doonaan ciidamada Al-Shabaab ee deegaankaasi ka baxay. shalay ayay ahayd markii diyaaradaha waxduqeeya ee dowladda Mareykanku ay dhowr gantaal ku dhufteen deegaan u dhow Qaycad, inkasta oo aan xog dhammaystiran laga hayn waxyeelada ka dhalatay duqeyntaasi. diyaaradaha Mareykanku waxay kaalin weyn ku leeyihiin howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Galmudug, iyadoo 3 usbuuc ee ugu dambeeyay dhowr duqeymood ka geystay deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug. dadka qaarkood ayaa isweydiinaya baahida keentay diyaaradaha waxduqeeya ee dowladda Mareykanku in ay deegaankaasi duqeeyaan, maadaama ay halkaasi ku diranayaan ciidamada dowladda federaalka ah iyo ururka Al-Shabaab oo marka tir ahaan iyo qalab ahaanba la eego ay ciidamada dowladdu aad uga xoogan yihiin ururka Al-Shabaab oo aan iyagu haysan adeegyo badan oo ay heli karaan ciidanka dowladdu. dadka fikirkaasi qaba waxay aad uga walaacsan yihiin in dhibaato xoog leh ay ka dhalan karto duqeymaha ciidamada Mareykanku ay ka geysanayaan gobolka Mudug. diyaaradaha waxduqeeya ee dowladda Mareykanka ayaa horay waxa ay duqeymo uga geysteen qaybo kale oo ka mid ah dalka, sida gobolada Jubbooyinka iyo weliba gobolka Bari, halkaas oo ku dhawaad 10 sano ugu dambeeyay ay duqeymo ka geysanayeen, iyadoo duqeymahaasi ku tilmaamayay kuwo lagu beegsanayo ururka Al-Shabaab. hase ahaatee goboladaasi waxay ka mid yihiin ilaa iyo haatan gobolada ay weli ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab, taas oo dadka qaarkood ku abuurtay walaac ah in ciidamada Mareykanka qudhoodu aysan daacad ka ahayn la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Awowe, VOS TV, Cadaado.